الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa loo ogolaaday in 5 salaadood laga adimo aadaan baahsan bisha barakeysan ee Ramadaan kaasoo dibadda laga maqli karo iyadoo guryaha u dhow sameecada loogu xirayo. waa markii ugu horeysay oo masaajid ku yaala gobolkan Minnesota loo ogolaado in sameecada dibadda gaaraya aadaan laga maqlo. duqa magaalada Minneapolis oo war-saxaafadeed kooban jeediyay ayaa wuxuu sheegay sida tan. Assalamu alaikum, magayga wa Jacob Fry, Duqa Magalada, City of Minneapolis. I am proud to announce today that during the month of Ramadan, we will be having the call to prayer broadcast for the Dar al-Hijra Mosque. Thank you so much to the mosque, to Imam Sharif Muhammad, as well as CARE for putting all of this together. This came from community, it emanated from community, and we are proud to support it in the form of a permit. During this time when it's so essential that we physical distance and that we are praying apart, we still wanted to create a sense of togetherness. And I think this is so rooted in tradition and community that it allows us to do exactly that. markaa kadib ayaan waxaan la kulanay imaamka masaajidka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isaguna arinta aad u soo dhaweeyay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. waxaan u mahadcelinayaa sida u jeedeen duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry oo muxuu ahaa noo ogolaaday inaan bisha Ramadaan aadaanka uu kor u baxo oo ka aadaano masaajidka Daarul Hijra xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis. aad iyo aad buu u mahadsan yahay duqa magaalada Minneapolis shaqadaas uu fududeeyay oo uu noo ogolaaday iyo waxa kale oo mahadsan staffka ama shaqaalihiisa iyo City of Minneapolis ama magaalada Minneapolis maamulkooda aad u mahadsan yihiin. waxa kale oo doonayaa halkan inaan uga faa'iideysan iyadana u mahadceliyo CARE muxuu ahaa oo iyaduna xaqiiqatan shaqadan fududeysay oo iyada la'aanteed ay adkaan lahayd in shaqadan la qabto muxuu Jaylaan Xuseen iyo teamkaasna aad baan ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca masaajidka. muxuu ahaa arrintan waxay ka timid dadaal masaajidka Daarul Hijra iyo hay'adda CARE iska kaashadeen ayay ka timid kadibna markii aan u aragnay waqtigan adag ee lagu jiro dadku ay guryaha ku xareysan yihiin muxuu ahaa aysan dadku isu soconaynin masaajidda ay xidhan yihiin dadku aynan salaadii aynan imanaynin haddana muxuu ahaa la socotaan walwalka iyo fikirka iyo naxdinta jirta bishii Ramadaan ay soo gashay ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu habboon dadkii wali waxa la yiraahdo social distance ama ay wali u xayirnaan karaan haddana ay dadku u dareemaan in wali laga warqabo in masaajidoodii iyo community ay ka warqabaan in shaqadii muxuu ay wali socoto in cibaadadii ay wali ay jirto qaabka ugu habboon oo la sameeyaa kadibna waxaa soo baxday fikradana inaan ka shaqeynay inuu aadaanku uu kor aado sidaas oo marka arrintan ay ku timid oo muxuu ahaa asalkeedu ay ku timid kadibna markaan u geynay xafiiska muxuu ahaa duqa magaalada Minneapolis iyo maamulku aad bay u soo dhaweeyeen waynan ku mahadsan yihiin. ujeedada aan ka leenahay waxa weeye waqtigan adag ee aan ku jirno bulshadu inay dareento wax la yiraahdo walaalnimo bulshadu inay dareento dadku cibaadadoodii salaadii subax in loo aadaamo oo xilliga la kacaya dadku inay muxuu ahaa ay maqlaan xilliga duhurka aadaanka xilliga casarka aadaanka xilliga maqribka aadaanka cishihii aadaanka intaas oo dhan inay maqlaan oo maaragtay muxuu ahaa ay ka daboosho awal hore masaajidii ay iman jireen hadeen hadda imanaynin aadaanka isaga qayb kamid ah waxaan doonaynaa oo kale inuu u noqdo waxa la yiraahdo muxuu ahaa sense of security dadku inay dareemaan in la danaynayo waxaan kaloo rabnaa inay dadku dareemaan waxa la yiraahdo diintooda iyo iyaguba in la qadarinayo la ixtiraamayo ayaan rabnaa iyaguna inay muxuu ahaa ay dareemaan waxa kale oo doonaynaa ugu dambeyntii connection iyo ku xirnaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadku inay dareemaan iyadana waan doonaynaa yani marka ujeedada aan ka lahayn waa sidaas Ilaahay waa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala inoo fududeeyay